halkan ayay ka kala taagan yihiin doodan waxauna mid kastaahi dul saarayaa fasirka uu ku xajisan karo xeendaabkiisa daraf kastaahina waxa uu isticmaalayaa waraysyadii miirla'aanta ahaa ee Sufyaan iyo waqaldiin midna ma dhahay laakiin waxaan leenahay dagaal ay ku jiraan dagaalku markuu qofka ku jiraan inuu gudoomiye su'aasha hadda la weydiiyay su'aal clear ahayd sida hadaa maxkamadda aan ka hor sharaxay eedeysanaha waxaa la weydiiyay qaraxyadii ay geysanayaan kooxda al-shabaab oo ah qaraxi Zoobo kale qaraxi Hargay Isaamaho kale qaraxi Shaamo kale ma waxa waaya la yiri dagaal miya mise wax qalada waa ay geysanayaan nimankaas eedeysanaha basit wuxuu yiri dagaal waaye qidada dagaalkeena ka mid tahay dagaal wixii kugu soo gaaro ama qarax ahaada ama caadi ahaada waa dagaal uu yiri intaasi waqa xilliga kale uu shaqo waa ka sax macna wuxuu leeyahay anaga mana caaytano mana dagaalno waxaan nabada ku raadinaa ama ahalna ama aweyno waxa igu dambeeya mar aan soo saaray muuqaalka igu dambeeya 3 sakiina qof xisbiga kamida ee dagaalan galay yiri oo xisbiga laga saaray ay kaasa igu dambeeya waxaan kaloo la wadaagnaa dadka ku soo biiriya xisbiga talo ku nool xisbiga islaamiga in aysan marnaba sameey karin wax ku saabsan violent wax la yiraahdo ama dagaal inuusan iclaabi karin ku dhaqmi karin soo jeedin karin ama uusan ka qayb gali karin dagaal hubaysan 58 jirkan ku dhashay Cadaado ayaa markii hore ku soo gala baraha bulshada show afar xaslanimo ah waxa uu ahaa madadaalan laga saaray hinaasaha dabiiciga ah loona ekeysiyay raaliyaal ku qanacsan jilaagan weyn balse Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Xirsi Taakeeye hal mar ayuu dig la soo yiri astaan iyo magac cusub waana xisbiga tala ku nool oo aan haysan sharciyad la isla ogol yahay iyo diiwaan rasmi ah waa aysa u kala duwan tahay marka uu taagnaa janalada gaarka ee aan dhameystirin tayada hubinta iyo marka la isku haysto xurriyadiisa oo difaac iyo dood ay ka kala galayaan maalintan dhinacyada dacwadda bandhigan maxkamadeed anigu waxaan mutacallim waxaan dadka wadanka indhaha u ah xilaalintu waxay bixisay sawir aad u qaldan oo aan aniga ahayn sawir nin raba inuu wadankiisa dudumiyo sawir nin doonaya inuu wax qaribo ma yihiin ninka gudoomiye sooyaal ahaan waxa uu isku maray Spain iyo Mareykan waxa uu ku noolaa Kenya oo iskaashi amni ahaan loogu soo gacan galiyay dawladda Soomaaliya September 28 sanadkii tagay ee 23 wax walba uu hore u sheegay waxa ay ka ahayd falanqayn uu kala yimid darajada cilmiga ee uu sheegtay waxa uu iska bari yeelayaa iscajabintiisii hore ee ku dhisneed aragtida waxa ay la tahay waxa ku jirta political analysis professor nin mutacallim ah waxa laga yaabaa dadka qaar kood inaysan fahmi karin marka aan isticmaalayo waxa la dhaho shaqashada siyaasadeed marka weligay ma taageerin qayb kama ihi ee lama dhacsani waxaan ka soo horjeedaa qof kasta oo Soomaaliya dhigiisa in la daadiyo marka lagu daro shacabka kaliya maahan marka lagu daro ciidanka xildhibaanada dawladda waxa uu u muuqaal eg yahay fursadoon raadinaya dareenka dadka si uu u soo ciriirsado saaxada siyaasadeed oo ah madax meel u geli waa inaga iyana isku soo ahaan jirna waa joog ceesho milix waxa kaloo leeyahay wadaagay inay macquul tahay inaan ka qayb qaato maadaama qualificationskeeda aan leedahay saxitaanka dastuurka inaan ka qayb qaato marka dawladdu waa isargnay xildhibaankii waa isargnay saraakiisha waa isargnay nabadoonnada kulli waa yimaadeen halkaas wax noo marayaan fikradahan wareersan ee hubanti la'aanta ah waxa lagu salfaday dhowr dhalinyaro ah oo ay si wax ka yihiin Yaasiin Axmed Maxamed Cabdulle iyo Maxamed Cabduqaadir Cali Nuur Sandere waxay ahaayeen raacayaashii online-ka ku galay heshiiskan waxaase cajiiba Yaasiin waa mid ka mid ah ciidamada militariga codad iyo muuqaalo laga baahiyay ayuu ku garab istaagay Taakeeye mana uu yaqaano duulaanka ka dhanka argagixisada xaq Professor Sufyaan Taakeeye gudoomiye xisbiga talo ku nool al-islaamiya aan mudaharaad aan ka dhigno aan ka hadalno hawsha ayaan ka harin Muqdisho aan ugu soo baxno meelo badan hawsha ayaan loo fariisan ninkan xarar dheer ku dhashay ayaa hadda ugu jawaabaya garsoorka inay ka ahayd aragti wixii uu hore u yiri waxa uu ku koobay jawaabihiisa xamaasad caadifad dhalasho ah ku timid lagana soo xaday is aruursi xagga WhatsApp-ka ah oo laga been abuurtay oo group WhatsApp laga soo qaaday codad ku jira ah oo dad qaab qabiil ah aan u xifaaltanay group baan ku jira kulmiye la yiraahdo groupkaas adiga doodii waxay noo soo socoto
habeenba waxay nala geli jirtay istakfiirin mar is-ammaan mar inaan barnaamij diimeed ka hadalno mar siyaasad meel axkaam lagu aqriya ma ahayn kilibka koowaad oo waxaa soo haray ah oo gruubka ah oo aan ku dalbanayo Sufyaan Sheekh Axmed xurriyad inuu ku helo oo in mudaharaadno wax dawlad uga furan ama qaran uga furan ma jiro wuxuu ahaa gruubkaasi gruub qabiil waxaa samaystay niman nabad sugid ah iyo dad ka tirsan galmudug aniga waa la igu soo dara xeeraalintuna meesha ka sheegtay waxaa igu soo daray nin la yidhaahdo magaciisa Bashiir Xaashi dooda meesha noo taalla anaga waxay ahayd mar istakfiirinay gashaa mar waxay gashaa siyaasad mar bidiin bay gashaa laakiin wax dawlad la yiraahdo oo uga hadalnay ma jiro ayagu markaas waxay ku hadlayeen afka taliya magaciisa markaas soo qaadi jireen laakiin wax dawlad la yiraahdo soo qaadi jireen ma jaruna ma jara qabiil buu ahaa maxamed cabduqaadir cali nuur sandheere waxa uu isku dayay in uu marin habaabiyo hay'adaha amniga waxa uu ahaa kooxdan laakiin waxa uu isku diiwaan geliyay si soo dhiibe khawaarijta al-shabaab la safnaa maanta laga bilaabo waxa ka mid noqday xisbiga tala ku nool ogaalkii gudoomiye Sheekh Sufyaan waxa leeyahay xafidakumullah Allah ku xifdiyo bariira shabeellada hoose ayuu safka kooxdan ka soo galay waxa uu gacanta amniga galay December 20-keedii sanadkii ina dhaafay kan kalena waa daruuf jirta awgeed waa aragtaa mala warqadda waa akhriday waa u sheegay baaraha iyo raysay xala u sheegay kamid ah daruuf jirta awgeed ya mana video wajilaa wala laga duway video kala soo dhibisa jilaa wala laga duway waka shaqaraday waa nin balgamoonta ka bato shaqradaysa shaqadii waa marka waxa siraysan leenkan wax ka xafadlaan sida shaqo ku raadiyay Axmed Cabdalle ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda hordhiga dalabyo waaweyn oo ay ku jaangooyeen xeerarka la dabeecadda ah dhaqanka taakeeye mudane gudoomiye saddexda eedeysane ee maanta hor fadhida waxa horjoogo u ah Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Xirsi oo lagu naaneyso taakeeye mudane gudoomiye eedeysanaha sida ka muuqata xaashideena eedda waa 58 jir ma aha nin dhalinyaro ah oo aan isleenahay maanta waa la qalday iyo nin aan isleenahay ma aha da ku filan wuu qabaa mudane gudoomiye aqoon ku filan oo aabihiis Sheekh Axmed uu soo siiyay wuu qabaa diintu waa la baray sidoo kale nin in muddo qurba soo jooga wuu yahay laakiin hadda waxa uu ku dhaqmaayo iyo bulshada Soomaaliyeed sida uu gaaleysiinayo wax la qaada kara maaha mudane gudoomiye waxa maxkamadda ka codsanaya halka eedeysanaha kuwaad labaad iyo saddexaad inay ku xukunto mid walba qodobada aan ku soo eedeynay abukaate Isxaaq Cabdullaahi ayaa isna ka codsaday garsoorka inaan lagu mashquulin dadka Soomaaliyeed arrimaha taakeeye maadaama waxa laga dooday ay yihiin fikirkan uu qof ku jiro qofkina uu yahay qofkaas anagana hortaagan wixii uu marka fikirka la sheegayo ee maxkamadda ku haysato xaraanta ku eedeyhayso anaga aan ka difaacayno oo meelaha yaalo fikirkaas wuxuu ka qabo in asaga la weydiiyo waa shayga ugu haboon laguna go'aan qaadan karo aniga marka waxaan soo jeedinaa in maadaama waxyaabaha hadda uu xiraanta soo qortay hadda qodobbada la soo qoray oo xeerka la dagaalanka argagixisada xeerka la dagaalanka argagixisada macnaa iyo tala ku nool misqabanayaan horta ururada la diiwaan gelin macnaa kamid ahaan ururadiis noocaas ah meel uu yahay hadda hadii la yiraahdo ururada ku jira dhinaca ku jira marka waxa haboon wixii in laga dhinacaas inta laga daayo fikirka lagu soo koobo fikirkana qoladan say u arkeen waa sheegeen annagana saan u aragna waa sheegnay qofka fikirkaas aan fasirayna lahayn qof meeshaas jooga waaye ragga kale xisbiga qofka soo biiray tawxiid loo ma qabto la ilaaha illa allah lagu soo biiray macna qofka markuu mabaadiida saddex aan sheegayno macna guurka in la badiyo iyo in mataqaana midabta korka la iska daayo iyo in la qof laba baasaboor la aan dalka loo dhiibin iyo arrimaha sadaa aaminto wabillahi tawfiiq xisbiga kamid ah waxa uga mid naqay kaliba soo duubay bas kilibka hadii oo YouTube kala soo galiyo ama Facebook waa ku jirtaa hadii kilibkaas laga bixin waa ka baxday hadda nin meeshaana kilibaas oo soo galiyo kilibkiisa waa laga tiray meesha kuma jiro saas marka kilibkii hore lahaaya waa laga riday waa baxay lama dhihin kanoo kale moogtahay dagaal wax uu iclaamiyay waa ku biiriyay marka uu ku biiray dagaal wax uu sheegay inuu galaayo waa laga saaray
مدن قدومي قرصان محكمة شرفت waxaan rajeynaa maadaama meesha uusan dambi muuqanay fikir oo muuqdo fikirkana sababta looga hortagay lagu horgeeyay aysan maxkamad ahayn in maxkamadda go'aan ku habboon ay ka qaadato maxkamaduna waa mahadsanta qabiil la caayo xeerka ciqaabta kuma taalo meel la leeyahay waa dambi ama dad isku aflagaaday qabiil oo loo soo xiro maxkamad loo soo taagay meel xeerka ciqaabta uu leeyahay waa dambi qabiil caay kar ma jirto bal xalaalintu qodobada ay ku soo eedeysay kamid ma ah saa darteed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa yaasiin wax fal dambiyeed ah oo hadda uu galay oo lagu hayo ma jirto saa darteed in xorriyadiisa dib loogu celiyo meeshuu ka shaqayn jiray iyo talisku ka tirsanaana qarannimadiisuna hore usii wato maxkamadda waa mahadsanta fursado siman oo ay dhinacyada ka heleen garsoorka kadib gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho.